غير ودين سلام يا سلام كده waxaan u rabnaa inaan dul istaagna arinta qabsatay social media qaasatan wiilka beeraleyda Sweden degan ugu horeen markaynu arinta aynu falanqeynayno waxaan u rabnaa inaan ku dul istaagna laba qaybood qaybta koowaad waa luqadda jirka qaybta labaadna waxaan ku dul istaagnaa Soomaalidu waxay u badan yihiin qaasatan kuwa social media ku jiro tan ugu horeyso luqadda jirka markaan wiilkan ku qiimeynay ninkan af Soomaali badan ma haysto ama af Soomaali gaarsiinay inuu gabar ku shukansado ama ku soo xirgeliyo ma haysto batatan sida darteed ninkan waxaan ku daraynaa qaybta say wallahi tan labaad aynu rabnaa inaan ku dul istaagna qaybta luqadda jirka ninkan wax dabeecada uu leeyahay yaraatee ma jir sababtoo barnaamijka isagoo socda ayuu xanaaqayaa marna gabadha shankaroon su'aasha iyadoo weydiinaysa ayuu dhifrayaa ama uu isku dayay inuu soo boodo dareemahaaga yani sidee ka rajaynaysaa barnaamijka hadda sidee kula ta gabdhaha yani kula socod doontaa dabeecadaha noocan waxaa la qof markii manager laga dhigo ama markii laga dhigo qof barnaamij hogaaminayo dabeecadaha noocan way yeeshaan bulshada waana wax caadi oo dabiici ah dhaco waxyaalaha noocan inuu qofka la yimaadana waxay ka turjumaysaa dabeecadiisa rasmiga qofka tan labaad waxay tahay markaan dul istaagayno xagee barnaamijka laga soo koobiyay markaan isweydiinayna wiilkan barnaamijka wuxuu ka soo koobiyay nin cadaan oo 12 sano ka hor waa ninkan idin muuqdo ayaa laga soo koobiyay barnaamijka ninkan wuxuu sheegtay cadaanka ah inuu xaas u baahan yahay nin beeraleyna sida idin muuqata gabdhahan ayuu meesha isku wada keenay wiilkan sidoo kale gabdhahan ayuu meesha isku keenay laakiin waxaan isweydiinaynaa Sweden yaa degan waxaa degan Soomaalida ugu badan Yurub qaasatan gabdhaha ugu badan Soomaalida waxay degan yihiin waa Sweden kula tahay ninkan inuu ka waayay gabar Sweden jawaabtu waa no su'aal ayaa ka imaan karta gabadha sheegatay ka waran inay ka imaatay Norway gabadhaas marka inuu fiirin qaabka luqadda jirka gabadhaas ka maysan imaan Norway ee waxay ka imaatay isla Sweden sida darteed gabadhan barnaamijka ayaa lagu qurxinayay okay haddii barnaamijka lagu qurxinayo isla barnaamijka laftigiisa ka waran isla barnaamijka laftigiisa markaynu ka hadalno Soomaalida sidoo waxay ku salaysan wax la yiraahdo koob waana cilada ugu weyn wada haysta 99% YouTube-leeda markaynu ku soo bilaawno Soomaalida ay barnaamijka ay ku soo gudbinayeen oo yahay prank uu yahay dhiirigelin hadduu yahay barnaamij kale oo tabina 99% waa wada koobi haddiiba sidaa tahay ninkan xaguu ka soo koobiyay baalka ninkan wuxuu ka soo koobiyay sida hore u soo xusnay ninkan cadaanka idin muuqdo qaabka uu fadhiyo iyo systemka iyo waxa uu keenay waa isla ninkaas wuxuu sameeyay waa 12 sano ka hor wuxuu sameeyay episode 1 2 3 45 waxa waa musalsal ama waa season oo ugu talagalay in la daawo macquul ma tahay social media waxa ku jirta ninkan inuu xaas qabo macquul way tahay sababtoo ninkan waa shaqeys qaabka Yurub looga shaqeysan waa nin fahansan waa nin si wallahi sida darteed ninkan xaas lama uu noqon karo maaniga aragtideeda safa ku jirta hadla ku jirta marka caanaha laga liso loodana galiso oo caanaha laga liso hadana maanta dhan saasay u shaqeynayaan run ahaantii rabadku wuu yaqaanaa run ahaantii looda waa xoolaha uu wasakh badan la dhaqdo waa ogahay laakiin waxay leeyihiin faa'iido aad badan hada u jeedin rabadkii cuntada qaybinaya rabadkan wali cunada dhamaatay soo intuu imaana markuu inta imaado kadib waxa jira rabad kale oo cuno soo qaadayo rabadka cunada soo qaadayo waa rabadkan aad u jeedin وجدنا درتان برنامج متكلم انت كل مدن سيده نبدكلي Tira mi esta